dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ururka midowga Afrika iyo dalalka ku deeqay ciidanka Afrikaanka ah ee dhowr iyo tobanka sano Soomaaliya jooga waxay igu naxsatay qodobo dhowr ah oo la xiriira in ay ciidanka dowladdu ay yihiin kuwo isku filan marka la eego qorshaha sugidda amniga guud ee dalka. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shir maalmahan Addis Ababa ugu socday dalal isu muujinaya inay walaac ka qabaan qorshaha mustaqbalka amniga Soomaaliya balse raba in ciidamadooda ay gudaha Soomaaliya sii joogaan dhaqaalaha faraha badan ay ka helayeen Soomaaliya ay ugu heli lahaayeen wadamada taageera. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay u sheegtay in marka la eego in ka badan 100 xarumo ciidan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar hore sheegay in ciidanka Afrikaanka ay kala wareegeen ciidanka Soomaaliyeed kuwaas oo markan amniga goobahaasi sugaya. dowladaha saaxiibada la Soomaaliya ayaa durba bilaabay in ay sameeyaan iskaashi weyn iyagoona durba u soo jeestay sidii ay ula shaqeyn lahaayeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona bilaabay in ay sameeyaan tallaabooyin ay ku muujinayaan garab istaagga ciidankaasi. Soomaaliya oo indhaha ku haysa dhanka natiijada shidaalka dalka ayaa waxa ay u aragtaa wadamada ciidanka Afrikaanka ku deeqay ee doonaya in ay ugu yaraan fursadi ay ka helaan dhanka Soomaaliya. waxay wararka soo baxaya tilmaamayaan in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalku ay durba bilaabeen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ugu golleeyeen sidii loo sugi lahaa amniga guud ee dalka iyadoona ciidanka Afrikaanka markan la ambabixi doono ujeedkana uu yahay sidii askartaas beddelkooda ciidan Soomaaliya ay u geli lahaayeen. ila muhiima ayaa warbaahinta Xunaansi waxay u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dadaalo iyo qorshe waaweyn oo cad iyadoona taasi ay keentay in ciidanka Afrikaanka markan ay bilaabaan shirar aan dhammaad lahayn oo xitaa Itoobiya ay ku filnaaweysay loona gudbi doono magaalada Kampala dhammaadka bisha July 2026 iyadoona ugu dambeyn shirkaas uu noqon doono mid ka jaangoyn doona mustaqbalka ciidanka Afrikaanka ee gudaha Soomaaliya jooga. Djibouti waxay si cad u sheegtay in ciidankeeda Soomaaliya jooga ay sii joogi doonaan iyadoona askarta howlgalka midowga Afrika qayb ka ah ciidanka Hiil Walaal ay sii joogi doonaan gudaha Soomaaliya xitaa haddii dhaqaale la'aan ay ku dhacdo maadaama ay xiriirinayso xiriirka iyo cilaaqaadka kala dhexeeya dhanka iyo Soomaaliya. waxaa kaloo jira wadamo kale oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ciidamadoodu ay gudaha Soomaaliya ay keenaan. Masar ayaa ka mid ah iyadoona sheegtay in xitaa haddii howlgalka midowga Afrika uu baabo in ciidamadeeda gudaha Soomaaliya ay keeni doonto lana shaqeyn doonaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Turkiga waxa uu Soomaaliya u soo daabulay ciidamo iyo saraakiil dhanka amniga kuwaas oo bilaabay inay qaadaan tallaabooyinka waaweyn ee lagu xaqiijinayo nabadgelyada guud sida ay ku warameen mas'uuliyiinta iyo xubnahan. waxaana ila kala duwan ay dhanka kale inoo sheegeen in maalmihii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la xiriira sugidda amniga guud iyo shirar guud iyo kuwa gaar ah oo ay dowladdu mas'uuliyiintoodu la qaadanayaan xubnahaasi si ay meesha ugu saaraan wax walba oo keeni kara in mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya in ay raadiyaan dhaqdhaqaaqyadaasi kala duwan ee la xiriira sugidda amniga iyo in ciidanka Afrikaanka loo furo albaabka bixitaanka ee gudaha Soomaaliya taas oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta federaalku iyo xubnaha maamul goboleedyadu kulamo gaar ah arrimahaasi ay ka qaadan doonaan. caqabada ugu weyn ee hadda Soomaaliya ay wajahayso waa arinta siyaasadda la xiriirta doorashada dalka oo ay xubnaha mucaaradka iyo dowladdu laba daraf ay kala taagan yihiin. taasi waxay keentay in waqtiga kala guurka ay ku soo aadaan tallaabooyinka kala duwan ee wadamada qaarkood mararka kale uu ka mid yahay ee dhanka dhaqaale joojinta ay ku dhaqaaqaan taasoo keentay culays xooggan. waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in amniga iyo qorshaha siyaasaddu ay yihiin laba arin oo isku lagdan taasoo keenaysa in mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradkuba ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arrimahaasi la xiriira. muddooyinkii u dambeeyay waxay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday qorshooyin iyo tallaabooyin tijaabo
iyadoona ciidanka federaalka si iskooda howlgallo ay ka sameeyeen deegaano kala duwan oo gobolada dalka, iyadoona ugu dambeyn arrintaas ay tusisay indhaha mas-uuliyiinta beesha caalamka, gaar ahaan dalalka taageera ciidanka howlgalka midowda Afrika ee xeryaha iyo goobaha kooban ku sugan, kuwa oo halka dhaqaale badan ku qaata markii ciidanka dowladda federaalka oo kaashanaya daraawiishta maamul goboleedyada qaar iyo dadka deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda ay ciidamada u dhaqaaqeen goobo kala duwan, una suura gashay in deegaanada qaarkood gacanta ay ku dhigaan. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tala xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo ku xidhnaanta channelkayaga.